wasaaradda tamarta iyo macdanta Somaliland iyo shirkadda baadhista shidaalka ee Genel Energy ayaa si rasmi ah ugu wareejiyay mas'uuliyiinta gobolada Togdheer iyo Saraar deeq biyo ah oo dhan 891 booyadood oo qayb ka ah taakulaynta bulshada abaartu ay saamaysay. munaasabad kooban oo loo qabtay wareejinta deeqdan ayaa waxa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta Somaliland, mas'uuliyiinta shirkadda Genel Energy, barasaabada gobolada Togdheer iyo Saraar, xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale. waxaana ugu horeyn madasha ka hadlay madaxa guud ee shirkadda Genel Energy ee Somaliland, Ibrahim Khadar Maxamuud, iyo agaasimaha waaxda borotokoolka ee wasaaradda tamarta iyo macdanta Somaliland, barasaabada gobolada Togdheer iyo Saraar, iyo xildhibaan Cabdilaahi Yuusuf oo madasha ka hadlay ayaa bogaadiyay deeqdan ay shirkadda Genel Energy ay soo gaarsiisay bulshada. waxaa loogu talagalay in biyo dhaamis lagu gaarsiiyo dadka ku nool gobolka Saraar iyo qayb ka mid ah gobolka Togdheer oo hay'adda Genel Energy oo ay iskaashanayaan wasaaradda macdanta iyo tamarta oo ah fulinteedana waxay saaran tahay hay'adda Ambican inay gaarsiiyaan 99 tuulo isu geyn ahaan. booyadaha halkan ku sugan ee arkaysaan ee maanta biyo dhaamiskeedii la ilaaminayaa waxay ka kooban yihiin 80 booyadood, waxaana loogu talagalay 423 booyadood in la gaarsiiyo dhammaan deegaanada gobolka Saraar ka tirsan ee hay'adda Genel Energy ay ka wado sahaminta. sidaas la midana waxaa la daahfuri doonaa saacada soo socota insha Allah barnaamijkan mid la mid ah oo iyadana lagu gaari doono 520 tuulo oo hoostaga deegaanka gobolka Togdheer, khaasatan meelaha Genel Energy gacanta ka geysatay. أنا waxaan ka socdaa shirkadda Genel Energy markii horeysay ma shirkaddu ay wax ku deeqdo oo dhowr jeer horaan arrimahan oo ka qayb galay waxa la u waaweyn waxa kamid ah warshadii oxygen-ta dhalin jirtay ee waqtigii Covid-ka abaari sanadii hore nagu dhacay iskuulo booyado intaba Genel way keentay iyadoo wax dakhli oo dalka naga soo gala aanu jirin. waxana deegaanku iyo intii barasaabada labada gobol ee Saraar iyo Togdheer ba ay weydiisteen biyo dhaamiskan aan ka qayb galno waanu ka ajiibnay. iminkana gobolkan Togdheer ama guud ahaan badan isku qaada labada gobol waxa la geenayaa in dhan 890 booyadood iyo bacii wax lagu shubanayay intaba. waxaan filayaa haddii Ilaahay yiraahdo inay wax ka tari doonaan. shirkaddu hawlo badan bay mataqaanaa oo sahan ay wadanka ka qabatay. mar walbana waa shirkad dareen leh hawlaha mataqaanaa ka socda ama dhibaatooyinka ama xaaladaha lagu jiro. waan uga mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad shirkadda Genel oo ugu horeeyo madaxa shirkadda Ibrahim oo runtii si wanaagsan uga soo shaqeeyay. maantana aan taaganahay qaybintoodii 468 booyadood weeye. waxaa la kala geynayaa 54 meelood oo bloggii shirkaddu ay ka shaqeynaysay ah. run ahaantii waxaa farxad noo ah maanta inaanu goobjoog ka ahaano 423 booyadood ama goobood oo lagu wareejinayo biyahoodii oo runtii ay ka qayb qaateen ay soo bixisay shirkadda Genel oo runtii qarankan iyo ma garanaysaa waddankeennaba runtii u hurtay in ay maalgeliso oo ay ka baadho shidaal. shirkadda iyo hay'adda wada shaqaynta leeyihiin aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa maanta deeqdan ay wadaan iyo deeqdii hore xilligii Covid-19 ay dadka kale labadaaba waa uga mahadnaqaya. ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta ee Somaliland ayaa uga mahadnaqay shirkadda Genel Energy deeqdan ay soo gaarsiisay bulshada deegaanada gobolada Togdheer iyo Saraar. marxaladan maanta aynu joogno oo guud ahaan gobolka Togdheer iyo gobolka Saraar ay ku bixinayso 891 booyadood ay la gaarayso shirkadda Genel runtii iyo wasaaradda macdanta iyo tamartu iyagoo mar walba iskaashanaya ayaa hawlahani ay yimaadaan oo ay ka qayb qaataan mar walba inay bulshadooda gaarsiiyaan. kulay u heshiisiyaan kula jirno oo ay ka mid tahay in dadka community diplomatka ay ka mid tahay in deegaamada ay ka shaqeynayso shirkaddu ay horumariso gaarsiiso. waana lagu mahad celinaynaa intii aan gula heshiinay iyo in ka badan ba runtii way sameeyaan. waa fahmi kay saxirsi bulsha TV Burco. dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta. waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida taxalladeeda.
dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed. hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.